السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وهريالك شعبك يوتيوب كان يقولون بعض قادر حسن ضولي اسأرق ونكسن أديكو عافمات اسكو صنق ونكسن ما أنت مقالك وحاو كساب سنيهي وحاو مقال كان دبس عضا مقال هوري وبرتدي يوتيوب كجرة أو أن أوجه لي أرمها الدوكومنتية haddaba jarmalka waxa uu taagan yahay Soomaalida degan dalka jarmalka intooda badan waxa uu leeyahay Soomaalinimadiina ma aqoonsan haddaba arintan aadka dadka shacabka Soomaalida ah ee dalkan jarmalka degan aad u wareerisay oo maskaxda ka gashay maxaa arintaas sababa soo noqdo wanaagsan hadii ay tahay markii kuugu horeysay ee bartan horyaalka shacabka YouTube ka soo booqatid subscribe-ka inoo saar sidoo kale like iyo comment-ga intuba waa inuu muhiim muuqaalka ayaan si qaada dhigi doona jarmalkii waxa uu taagan yahay dadka Soomaalida ah Soomaalinimadiina maba aqoonsanin haye waxaan aqoonsanahay ayuu leeyahay dukumeentiyadii wixii ka horeeyay 1991 waxay ka dambeeyay maba aqoonsanin runtii arrinkan markaad si fiirisid xoogaa maskaxda aad ka shaqeysid waad dareemi kartaa sidii wax u jiraan sababtoo ah dal dhan oo oranaya qoomiyad dhan oo Soomaali ah ma aqoonsanin Soomaalinimadii waa la yaab runtii sidaad wada ogsoon tihiin Yurub jarmalka kali ah oo ay Soomaali degan yihiin kali ah kama jiro wadamo badan oo ay degan yihiin Soomaali aad u fara badan oo Soomaalida dalka jarmalka degan 3 jibbaarkeed ay degan yihiin way jiraan intuba Soomaalinimadoodu waa la aqoonsan yahay sharciyo ay nooc bay ka haystaan Soomaalidu sida caadiga ah ee dalalkaasi dadkooda ay u nool yihiin bay u nool yihiin waa caadi laakiin dalkii jarmalka waxa uu taagan yahay dadkan Soomaalinimadooda maba aqoonsanin runtii aniga markaan fiiriyay mar waxaan is iri ma dadka loo diidan yahay sharciyo in la siiyo oo dadkan macnaha ay sharciyo qaataan oo de horumarka dadkan kale wadanka ayaga qaxa ku soo galayo qaxootiga ah horumarka ay doonayaan horumarka ay gaareen horumar lamid ah inay Soomaalida gaaraan miyuu dalka jarmalka u diidan yahay inay Soomaalidu gaaraan masa sabab kale lagu haysta warqad ayaa waxa loo qoray qolooyin magaalo kamid ah adigu dalka jarmalka ka taliya oo madax ka ah dad Soomaali ah oo community ah u qoray warqad waxayna dhaheen maxaad Soomaalinimadeena aad ku aqoonsan lahayd sababtoo ah qofka in qoomiyadiisa iska badaayay Soomaalinimada qofka xataa waxa la garan karaa magaalada uu ka yimid ee Soomaaliya qofkan ma Boosaaso ka yimid qofkan ma Hargeysa ka yimid kan ma Kismaayo ka yimid kan Muqdisho miyuu ka yimid mid kan Beledweyne miyuu ka yimid waa la garan karaa runtii meesha uu ka yimid qofka Soomaaliga ah xataa magaalada uu ka yimid la garan karaa ayagoon waxa leeyihiin ma aqoonsinimo Soomaalinimadii marka aniga arrinkan waa ku wareer siyaabo kala duwan aan is iri bal uga hadal dad dhan oo leeyahay Soomaalinimadii ma aqoonsanin de waa wax maskaxda galay Norway waxa laga sheegay dadku waxay u kala saaraysaa waxa la yiri qof walba oo magaalada ka yimid waxa la leeyahay kaale ha adigu xamara ka imid ma tirha ma magaal hibilaya ka timid sidaas laga sheegay Norway jarmalkan waxa uu taagan yahay war magaalo iska daay kulligiiba ma ida aqoonsanin uu taagan marka arrinkan reer jarmalow muuqaaladeeda waa daawatiin muuqaalada tirada badan ee halkan ku jira kulligood oo jarmalan uga hadlaa bal adinka sidee ayaad arrinkan u aragteen bal fikirka comment-ga igu reeba sidaad aad u aragteen Soomaalinimadiina ma aqoonsanin uu leeyahay teed kale waxa kaaga daran meeshan safaarada ku taalo safaarad Soomaaliyeed ah magaalada Berlin ku taala war xataa si easy ah ayaa qofka Soomaalinimadiisa lagu aqoonsan karaa sababtoo ah dawladda laftirkeeda dad baa u shaqeeya Soomaali baa u shaqeeysa qofka hadii la yiraahdo Soomaalinimadaada ma aqoonsanin waxyaabaha easy-ga ah ee dadka lagu kala saari karo waxa kamid ah in de shaqaalahooda qaybta Soomaalida inta la keenay la yiraahdo war qofka Soomaali baa muxuu yahay bal naga hubi
qofka la dhageysto hadalkiisa codkiisa la dhageysto qaabkiisa la arko dhaqankiisa la arko dee waa la sheegi karaa Soomaalinimadu waa wax dhiiga ah ma ahan wax qofku rabo iska sheegan karo ama qof Ethiopian ma dhihi karo aniga Soomaali ama Eritrean ama meesha rabo ha aado laakiin dee qof Soomaali ama qof Djiboutian oo kale in isku ekaadaan waa laga yaabaa Djibouti iyo Soomaaliya waa isku Soomaalidii Soomaaliya la wada yahay laakiin wadamada kala duwanaadeen laakiin in uu yiraahdo wadankan asagoo fursado badan oo dadka lagu ogaan kara heli kara inuu yiraahdo macna Soomaalinimadii ma aqoonsan bal wixii fikira comment uga wadaaga insha Allah muuqaal kale ayaan uga soo hadlay doonaa fikirkiina iyo sida wax u aragtiin waa aruurin doonaa muuqaalkayga maanta intaas ayuu ku kooban yahay oo aan uga hadlayay war arinka Soomaalinimadiina ma aqoonsan uu Jarmalku taagan yahay bal reer Jarmal maxaa adiga ka leedihiin intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa inta muuqaal kale ku kulmi doono waxay ka tagayaan sidaas iyo nabadgelyo